magaaladii waa la dumiyo dadku dekada adaa duminaya magaalada kii soo duulay ilaahay aduu ku roon yahay dadka guryihiisa ku dhex jiray ee duminayay ee dadka leynaya dhiiga daadinayay yaa leh nabadgelyadii cid baa ku cayaaraysa waxaan arkayay Salmaan Maxamed Aadan oo shalay ka hadlayay golahooda oo leh wada hadalkii waxa diiday garaadada dhulbahante waa nasiib darro weyn limaad ku soo duushay gurigiisii duminayso ilaahay aduu dadkiisii laynayso inaad haddana ku tiraahdo wada hadalkii buu diiday waxa ka haboonaan lahayd inuu bareero oo yiraahdo inay isdhiibaan bay diideen hadalkaasi hadal la garan karo yu ahaan lahaa annaga diidna inaanu isdhiibno annaga la dulli qaadan mayno annaga ka dooranayna inaanu gulnimo ku noolaano geeri ka dooranayno dadka yaga ka doortay waxa aanu diidnay waxa weey anoo ku dilaya isacabtu waxaanu diidnay waxa weeye anigoo guryahaaga duminaya dushooda meydkaaga dushiisa igula hadal waxaanu leenahay annagu burco dumin mayno hargeysana ma duminayno barbarana duulaan kuma nihin ciidana nagama dul joogo laakiin haday arintan sidan ku sii socoto oo waliba dilka cayna loogu daro meelay aadi doonto xaajada alla og meelay aadi doonto xaajadan alla og waxaanu adduunka u sheegaynaa ciidankan guryaha iyaga duminaya dadka iyaga laynaya hana laga dulqaado waxa aanu doonayna waxa weey markaas bay wada hadal imaan kara markaas aanu ka hadli karaynaa dhibaatada noo geystay mid af leh mid adin leh markaas aanu ama afin karaynaa ama aanu aarsan karaynaa laakiinse inta ciidanna dul joogo nin dhaglow maqal inta ciidan guriga iyaga ku jiro wax wada hadal loo dhaxaynaya ma jiro wax wada hadal aanu la galeynaa ma ay jirto haddii xabadi joojin imaanayso waa xabad joojin ciidanka lagu qaaday ta kaliyaanu damaanad qaadi karaynaa wata xabad joojin ciidan lagu qaadayo guryahooda lagu celinayo annagu waxaanu mas'uuliyadeeda qaadi karaynaa ciidankaas oo guurayo kuwa iyagu inay xabad ku ridin laakiin ciidankaas oo degan ma mas'uuliyad qaadayno in ay xabad laga daynayo maxaa yeelay ninkii aabihii dilay wiilkan ee walaalkii dilay ee gurigiisa dumiyay ha ku dul joogo ha ku nabad galo meelay adduunka ka dhacdaa ma jirto waxaanu leenahay maamulka isaaq ee Somaliland maytida aad hafraysaan ka daaya maytida garaad Cabdiqani baan kala go wadan seexin ana ka dhaxlay garaatooyada aabahay baan seexin awowgay baan seexin chief aaqil Ali Koran seexin ilaahay aduu ku roon yahay xad annaga iyo isaaq aanu ku wada jiro oo Soomaali aanu kaga soocannahay oo jiraan jirin warsangeli iyo isaaq xad ay goori uga soocan yihiin Soomaalida kale oo ay baan jirin xad qabiileenu leenahay xad qabiilo oo warsangeli iyo isaaq u dhaxeeya jira xad qabiilo oo dhulbahante iyo isaaq u dhaxeeya jira ka weeye ka kaliya inuu ku xisaabtamaynaa gaala Soomaali qaybsanaysay oo Talyaani iyo Ingiriis aha oo iyagu sidaynu wax u qaybsanaa 1884 soo qaybsaday baynu inagu ku noolaanaynaa idinka yeelimayn nabad hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda nolol hadaa doonaysaan guryihiina ku noqda labada baad ku heli karaysaan annagu nabad iyo nolol loo taala inta wiil facay ama asaaga iyo dhulka yaga sheeganayo nabad iyo nolol waxaanu ku falaynaa ma ay jirto wabillahi tawfiiq